السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو محمد شامع علي كسر هذا عن الأونلاين. وحرب مقال كنا كجاه الله شيء إن بدن صومالي وأياد وجه هذا الشيء وأكتود أد وجوين وإن بدن أي راديان وحيابك للدون يفكرك للدون أي كأمسين شيء قاسي وحويان ومعدن الله يقانو أما دريرها الله يقانو ميركوري ده ميركوري دريرها الله يقانو ودريرها أدو قالية لكن سفكرة قلدن أي صومالي دو كأمسيين أو أي نيدو دو كهيان waxaan rabaa muuqaalkan inaan si kooban uga hadlo dareeraha loo yaqaano mercury-ga labada qaybood oo ay qaybsamaan waxa weeyaan waa mercury-dan silfarka ah ee aad halkan ku arkaysaan iyo tu kale oo red ah oo sawirkan dhinacayga yaala saad ku arkayso ah labada qaybood bay kala qaybsamaan waxaan rabaa inaan muuqaalkan idinku kala sheego midda silfarta ah iyo midda casaanka midkee qaalisan labada inaan idinku kala sharxaa ayaan muuqaalkan rabaa maadadan mercury-da ah ee silfarka ah waxa ay taagan tahay halkeeda kilogram adduunyada waxa ay ka taagan tahay $300 ilaa $200 inta u dhaxaysa ayaa halka kilogram ee silfarta ah ka taagay maadadani waa maada aad u culus imika inta yar ee aan sido waxaad moodaa inaan caagad 5 litro biyo ku jiraan aan sitaba la moodaa inta yar baa culeyskeeda ka yaabaysa marka maadadani waa maado adeegyo waxyaabo kala duwan loo isticmaalo gaar ahaan mercury-da silfarta waxa loo isticmaalaa dahabka oo kale in lagaga soo dhex saaro markuu ciid ku dhex jiro ama biro kale oo kala duwan ku dhex jiro waxyaabahaas loo isticmaalaa inta badan sidoo kalena warshaduhuna way isticmaalaan oo waxyaabo kala duwan bay u isticmaalaan haddaba u baxo dhinacan mercury-dan casaanka ah mercury-dan ama red mercury-da ta loo yaqaano waa ta ugu qaalisan mercury-da waxaana qiimaheedu taagan yahay $100,000 ilaa iyo $300,000 ayuu taagay qiimaheedu halkeeda kilogram marka loo barbar dhigo ta silfarka ah aad iyo aad bay uga qaalisan tahay ta casaankii marka ta silfarka la barbar dhigo marka aad iyo aad baad ugu mahadsantiin daawashada muuqaalkan waxaan rabaa qof kasta oo aan ugu bashaareynaya qof kasta oo muuqaalkaygan arka in aanu idin diyaarinay koorso yar oo kooban oo soconaysa muddo kooban oo dhammaan cashiradeedu ay yihiin 18 muuqaal 18 ka muuqaal ayaa waxa lagu bari doonaa oo si faahfaahsan lagu bari doonaa oo lagu soo koobi doonaa dhammaanba wixii macdan aad uga baahnayd macdanta inta badan dadku waxay moodayaan wax weyn oo aad u sii balaaran oo lagu dawaqayo oo jaamacada loo galayo adoon 3 sanadood iska lumin adoon waqti badan iska lumin muddo yar oo kooban ayaad ku fahmaysaa oo toddobaad xataa ka yar ya muuqaalada hal mar baa lagu soo wada fasaxayaa Calin Academy application-kiisa la soo degaysaa toddoba maalmood wax keer baad ku fahmaysaa 18 ka muuqaal wixii aad fahmi weydana caawimaad baa laga siinayaa oo caawimaad ayaa lagu siinayaa buuxda marka waxaad la soo degtaa application-ka Calin ama halwadeelada Calin online la xiriir iska diiwaan gali koorsada qiimo dhimis baa lagu sameeyay hadda qiimo dhimis bay gashay marka iska diiwaan gali si aad uga faa'iideysato una barato macdanta min bilow ilaa dhamaad faham guudna aad uga qaadato oo aadan dadka wareerin oo aad kolba dhagax inta dhulka ka qaado biriyadan aan la dawaqin marka adiga oo aan ku khafiifin dhagaxaanta oo aan kolba dhagax inta qaado maanta oo saa inta aad u eegto kolba qof aanad weydiin oo dhagaxani madahaba ama dheemanba si yaro kooban u baro koorsada marka aad qaadato waxaan ku hubaa in aad fahmi doonto macdantu waxa ay tahay fikir buuxan aad ka qaadan doonto qof dambana aanad weydiin doonin dhagaxani madahaba ma macdanba ma gemstone ba ma diamond ba ma emerald ba oran maysid fikir buuxad qaadanaysaa sidaas ayaad ku garanaysaa adiga ayaa isku sheegaya wax walba oo maskaxdaada adoon cidna weydiin ayaad la kaashanaysaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay ku soo dhawow Calin Academy waan ku leenahay la deg application-ka Calin Academy waad mahadsantahay السلام عليكم مقعي هو محمد شامع علي waxaan rabaa muuqaalkan inaan kugu tuso qaabka aad u isticmaalayso ulana soo degiso application-ka Calin Academy application-ka Calin Academy waa application casri ah oo kuu sahlaya inaad wax baran karto meel kastoo daafaha dunida ka joogto adigoo telefonkaaga gacanta isticmaalaya application-ka Calin Academy waxaad kala soo degi kartaa Play Store-ka iyo App Store-ka waxaan muuqaalkan kugu tusin doonaa qaabka aad uga soo degiso application-ka Calin Academy Play Store-ka iyo sidoo kale qaabka aad u isticmaalayso application-kan Calin Academy waxaad ka helaysaa koorsooyin aad u tayo sareeya oo kala duwan oo aad ku baranayso hab online ah iyo sidoo kale iyaga oo practical leh haddaba si aad uga mid noqoto ardayda Calin Academy waxaad ugu horeyn tagaysaa Play Store-ka marka aad sidaa u soo furto waxaad halkan sare ku qori doontaa Calin ayaad ku qori doontaa magaca application-ka ku qoraysaa Calin marka aad halkaas sare ku qorto waxa kuu soo bixi doona isla markaaba application-ka Calin waa kan application-ka Calin ayaad soo furi doontaa kadibna waxaad taaban doontaa halka ay ku qoran tahay install ayaad taaban doontaa install marka aad taabato application-ku wuxuu kuugu dhici doonaa si toos ah
telefoonkaaga. intaa kadib markaad applicationka soo dejisato waxa uu ku iman doonaa halkan shaashadu ku imanayaa. halkan saad ku arkayso applicationkii Caalin Academy ayaa halkan ku yaala. waad soo furi doontaa haddaba si aad iskaga diiwaangeliso. marka aad applicationka sidaa u soo furto waxa uu kugu xidhayaa in aad iska diiwaangeliso oo aad samaysato account. marka aad sidaa applicationka u soo furto waxa uu kugu xidhi doonaa in aad iska diiwaangeliso ama aad gasho accountkaagii hore ee aad isku diiwaangelisay. haddaba anu imika tusaale ahaan oo kale waxaan ahay arday cusub, waxaan rabaa inaan isdiiwaangeliyo. waxaan taaban doonaa halkan ay ku qoran tahay sign up ayaan taabanaya. markaasaad halkan ka arkayso waxaan rabaa imika inaan isdiiwaangeliyo. magacaygan geliyey iyo magacayga dambe, gmailkayga ama emailkaygan halkan gelinayaa. saad halkan ku arkayso gmailkayga waan geliyey, halkan waxaan gelinayaa passwordkayga. passwordkaygu waa inuu noqdaa mid adag. saad arkayso kadibna sign up baan taabanaya. wuxuu ku leeyahay successfully sign up, si guul ah ayaad isku diiwaangelisay. intaa kadib halkan geli gmailkaad isku diiwaangelisay iyo passwordkaagi. hadda saad halkan ku arkayso account-kii aan samaystay ayaan galay. intaa kadib waxaan samayn doonaa hadba waxaan daawan doonaa ama aan xulan doonaa kulliyadaha kala duwan ee Caalin Academy ku dhex jira. kulliyado badan ayaa ku dhex jira. halkan saad ku arkayso waa category-yadii ama waa qaybihii, hadday noqoto agriculture-kii, hadday noqoto technical-kii, hadday noqoto luqadihii, hadday noqoto geology-gii oo macdintii dhulka ku saabsan. dhammaan waxyaabahaas oo dhan ayaad ka helaysaa. marka tusaale ahaan oo kale waxaan rabaa kulliyadaha Caalin Academy ka baxa kulliyad ka mid ah in iska diiwaangeliyo. tusaale ahaan oo kale Englishka ayaan iska diiwaangelinayaa, lagu baranayo 6 bilood, kadibna bishii waa $6 baad ku baranaysaa. kaas oo kale ayaan iska diiwaangelinayaa, 6 bilood baad ku dhamaynaysaa. oo qof kasta oo Englishkiisa rabo inuu bilow ka bilaabo oo kale ayaa dhigan kara. marka tusaale kugu siinayaa buy baad taabanaysaa halkay ku qoran tahay. halkan waxa lagu leeyahay waa qiimihii kulliyadda aad ku baranaysay. kadibna waxa aad samayn kartaa laba hab ayaad isku diiwaangelinaysaa: in aad la xidhiidho WhatsApp-ka oo hawlwadeennada Caalin Academy ay kuu soo fasaxaan koorsada ama kulliyadda aad rabto inaad iska diiwaangeliso sida qoraalkan halkan kugu qoran, ama in aad ku bixiso lacagta koorsada ama kulliyadda sida SAD, Sahal, EVC Plus iyo wixii la mid ah. marka laga diiwaangeliyo ee lagu soo fasaxo koorsada aad baranayso ama kulliyadda aad rabto inaad barato, waxaad ka helaysaa kulliyadaha aad iska diiwaangelisay. halkan my courses ay ku qoran tahay. halkan my course marka aad tagto kulliyadihii aad iska diiwaangelisay lagu soo fasaxay ama aad lacagtooda bixisay ayaa halkan kuu soo imanaya. intaa kadib tusaale ahaan oo kale waxaan furayaa farsamada moobilada ama cilad saaristooda kulliyaddan aan ku baranayo. saad halkan ku arkayso koorsadii ayaad dhex gashay, casharadii ayaa halkan ku yaala. marka level 1 level ay kala baxayaan casharadu. level 1ka imika tusaale ahaan oo kale level 1 baa imika liisii daayo diyaarsan oo diyaar ah inaan barto. casharka koowaad oo kale markaad furayso ama aad baranayso saasoo kale aad soo furaysaa. kadibna casharkii ayaa toos kugu soo baxaya. saad halkan ku arkayso waa casharkii ama xiisadii koowaad ayaan imika furtay ee koorsada farsamada moobilada. saad halkan ku arkayso waxaa casharkiiba halkeeni yaala oo muuqaal kaleer ah oo si fiican aan u arkayo. halkanna waxaan ku arkayaa download. casharkii sidoo kale waad la degi kartaa. waxaa jirta arday badan ama dad badan oo ka cawda internetkoodu inuu lacag badan ka cunayo ama lacag badan ama qarash badan ka baxayo. haddii aad ka warwarayso internetka, la deg casharka ama download garayso adigoo download taabanaya. tusaale ahaan oo kale download baan taabtay, quality-gaasaan ku dejistay oo kale ama quality-ga. kadibna casharkii wuxuu si toos ah ugu dhacayaa telefoonkayga ama gallery-gayga ku dhacayaa. halkaasaanaad ka helaysaa xiisadii oo aad ka daawan kartaa ama aad sidaa doonto ka heli kartaa. aad iyo aad baad ugu mahadsantahay daawashadaada. fadlan la wadaag asxaabtaada application-kan si ay isaga diiwaangeliyaan ugana faa'iidaystaan waxna uga bartaan.